soo dhawaada daawadayaal fiid wanaagsan qodobada xiisaha leh caawa dalkan ku daawan doontaan haddii ay baraale laga helo waxaa ka mid noqonaya ugaaska beesha ciise ugaas Mustafa Cabdi Ibrahim ayaa soo furtay wiil ay afduween maleeshiyada beesha Samron haddaba sababta rasmiga ee ka dambaysa afduubkaasi iyo sida uu u suurtagasay ugaaska beesha ciise inuu soo furto ayaan rabaa daawadayaal inaan halkan idinkula wadaago sidoo kale qodobada kale ee xiisaha leh dalkan ku daawan doontaan haddii ay baraale laga helo caawa waxaa ka mid noqonaya Somaliland oo markaasi ku hanjabtay inay gacanteeda dib ugu soo celin doonto laascaanood dhaqdhaqaaqyo xoogan oo laga dareemayo saldhigga weyn ee Gooja Cadde haddaba maxay tahay sababta rasmiga ah ka dambayso in Gooja Cadde ay markan ay ku ruqansadaan ciidamada maamulka Somaliland iyana waan ku hayaa faahfaahinta xogtaasi sidoo kale qodobada kale ee xiisaha leh caawa dalkan ku daawan doontaan haddii ay baraale laga helo waxaa ka mid noqonaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa duldhigay wadooyinka ugu muhiimsan ee magaalada muqdisho gaadiidka dagaalka xilli laga cabsi qabo in mucaaradka ay duulaano ay ku qaadaan villa Soomaaliya haddaba wararkaasi oo faahfaahsan ayaan saaxiib yaal halkan idinkula wadaagi doonaa 10 May maxaa dhici karo oo muddo markaasi muddo 3 maalin ay ka harsan tahay iyana waan eegi doonaa saaxiib yaal qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan oo aan idin qarinayo ayaad saaxiib yaal halkan ku daawan doontaan soo dhawaada anigu waxaan ahay Abdiraxmaan Lisbon halkan aad iga daawanaysaan waa kanaalkayga Macaash Media haddii ay taa markuu ugu horreysay fadlan kanaalkan rukumo oo subscribe dheh muuqaalkan aad daawanaysidna la garay siina share garay oo saaxiibadaada la wadaag maasani daawade hagaag ka mid noqo saaxiibada cusub ee gaarsiin lahaa 5,000 oo markaas subscribe ta waxa noo dhiman kaliya waa 50 qof oo kaliya ayaa noo dhiman ka mid noqo 50 kaas qof ee gaarsiin lahaa 5,000 aanu dabaal degno caawa markii aan muuqaalkan soo gelinaba hagaag aynu ku bilaawno ugaaska beesha ciise ugaas Mustafa Cabdi Ibrahim ayaa awood ugu soo ceshtay wiil ay markaasi afduween maleeshiyada beesha Samron dhowrkii maalmood ee u dambeeyay beesha Samron waxay ku soo aruureen afduubka dhalinyarada caruurta birmigeedada kufsiga haweenka iyo waliba sidoo kale dadka beeraleyda iyo dadka aan waxba iska celin karin ayay inta badan ugaarsadaan iyagoona geesiyaasha beesha ciise ay hor istaagi waayeen ayna ka soo carareen taasi waxa ay dhalisay in dad badan oo ka soo jeedo beesha ciise ay gacanta ku dhigaan iyagoona ay siyaabo kala duwan ay markaasi wax kala duwan ay ugu sameynayaan balse wiilkan dhalinyarada ah ay qabsadeen maleeshiyada beesha Samron ayaana ugu dambeyn ugaaska beesha ciise si geesinimo leh uga soo furtay isagoona dhowr ciidamo u direen dagaal halkaasi lagu galeen ay ugu suurta gashay in wiilkaas dhalinyarada isagoo bad qaba oo aan wax dhibaato aysan gaarsiinin inay gacanta ku soo dhigo ugaaska wiilkan dhalinyarada ayaa hadda markaasi loo geeyay ugaaska isagoona kaga mahad celiyay sida markaasi geesinimada leh oo ugu dhiiriday in nafsadiisa ay dad kale halis u geliyaan badbaadinteeda isagoona bad qabana uu hadda uu la joogo ugaaska beesha ciise tani waxa la dhigi karaa gul weyn u soo hooyatay waliba sidoo kale dhabarjab ay ku noqonaysaan maleeshiyada beesha Samron haddase xaaladu waliba sidoo kale iyo deganaanta goobihii lagu dagaalamay iyo deegaanada oo idilba waa mid markaas dhaqdhaqaaqyo laga dareemayo maleeshiyada beesha Samron markii laga adkaado inta badan dadka ayay u cagjuglayaan iyagoona isu tusaya am in ay leeyihiin dad awood badan ayay wadooyinka rondooyin waliba sidoo kale abaabul ciidan ay halkaasi ka qabsadaan balse waa mar lagu kala baxay oo xaaladoodii markaasi lagu kala baxay wararka ka imaanaya deegaanka Awdal iyo waliba sidoo kale goobaha ay ku dhow yihiin xadka la sheegay inay xiisadu markaasi u dhaxayso ciidamada waa markaasi beelaha deegaanka iyo waliba sidoo kale maamulka Somaliland wali ay markaasi kacsan yihiin iyadoona dhaqdhaqaaqyo ciidan laga dareemayo deegaano dhowr ah oo ay markaasi ay ku jirto meelo kala duwan oo ay hadda doonayaan in ay dhinacyadan kala duwan ay la wareegaan ugaaska beesha ciise tani waxa uu ku tilmaamay mid ay markaasi kaga jawaab celinayaan wax kasta oo ay isku dayaan maleeshiyada beesha Samron oo ay ku qabsadaan dhalinyaradaasi afduubkooda balse uu sheegay in ugu dambeyn ay iyagu ka guuleysteen maleeshiyadan hadda abaabulan ee doonaysay in dhalinyaradan ay sii kaxeystaan oo ay gacanta ku dhigaan dhanka kalena haddii aan fiiriyana Somaliland oo ku hanjabtay in ay gacanteeda ku soo celin doonto saldhiggii weynaa ee Gooja Cadde iyo waliba sidoo kale laascaanood iyagoona sheegeen inay dhaqdhaqaaqyo durba ay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo xoogan iyo waliba sidoo kale diyaar garow xoogan ayay sameeyeen ciidamada geesiyaasha maamulka waqooyi bari iyagoona Somaliland dhanka kale ee maamulka Guban State ay guuldarooyin la soo kulmeen
markan waxay tijaabinayaan gooja cadde waa meeshii sida xun loogu jibiyey iyagoona 10 taariikh lama ilaabaan halkaasi looga dhigay balse hadda xaaladda ayaa u muuqata mid ay diyaar garow xoogan iyo dhaqdhaqaaqyo xoogan ayaa laga dareemayaa halka kuwa Somaliland dhanka gooja cadde ay markaa u soo ruqaansadeen ciidamada difaaca ee gooja cadde ku sugnaa ee maamulka waqooyi barana waxay diyaar u yihiin cid kasta oo duulaan ku soo qaado deegaanadooda ayna 10 u dhigi doonaan maamulka waqooyi bari oo dawladda Soomaaliya cilaamisay kuna markaasi aqoonsatay ayaa maalmihii dambe si xawli ah u soo markaasi sarakacay iyadoona deegaano dhowr ah ay markaasi ciidamada maamulka Somaliland ay ku sugnaayeen gabi ahaanba laga saaray balse laakiin xaaladda ayaa hadda u muuqata mid cabsi badan ay soo wajahaysa maamulka Somaliland maadaama hadda ciidamadu diyaar garow adag markaasi ay galeen haddii aan fiirino wararka ka imaanaya deegaanada awdal iyo waliba sidoo kale goobaha ku dhow xadka ayaana markaas sheegaya in xiisadda u dhaxayso ciidamada beelaha deegaanka markaas iyo waliba maamulka Somaliland ay wali kacsan tahay iyadoona dhaqdhaqaaqyo ciidan laga dareemayo deegaano dhowr ah oo ay markaas ku jirto gooja cadde ila deegaanka ayaana markaas sheegaya in ugaas Mustaf uu awood markaas saraakiisha kala duwan ee gooja cadde ku sugan waxa ay sheegeen in ay diyaar u yihiin in ay si awood leh ay markaas noqon doonto in ay markaas ka dhiciyaan dhanka kale Somaliland ayaa la sheegaya inay kordhiyeen dhaqdhaqaaqyada ciidan iyadoona saraakiil ka tirsanaa maamulkaasi ay ku hanjabayaan inay gacantooda ku soo celin doonaan magaalada Laascaanood iyadoona deegaano dhowr ay ku hareersan yihiin wararka aan ka helayno gooja cadde ayaa tilmaamaya in halkaasi laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo waliba sidoo kale diyaar garow xoogan inkastoo aanan weli si rasmi ah loo xaqiijin dagaalkan cusub ee halkaasi ka jira balse laakiin xaaladda ayaa u muuqato mid cabsi badan iyo waliba sidoo kale walwal badan ay ku abuurayso dadka deegaanka iyo waliba sidoo kale dadka aagaasi ku dhow xaaladaha noocan oo kale ah ayaa markaasi naqanaya mid ay dadku iyo waliba sidoo kale deegaanku foojigan weyn ay markaasi ka jirto qodobkan ugu dambeeyana daawadayaal haddii aan fiirino madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa duldhigay wadooyinka ugu muhiimsan ee magaalada muqdisho gaadiidka dagaalka ah si ay uga hortagaan mucaaradka dawladda oo ay iclaamiyeen 10 May marka la gaaro maadaama uu gogol u fidiyay madaxweynuhu iyagana markaasi gogoshii inay ka jawaabaan ay ahayd waxay markaas sheegeen in ay qabsanayaan barnaamij weyn oo loogu soo horjeedo dhul boobka oo xasan sheekh maxamuud uu ka wado magaalada caasimadda ay muqdisho balse laakiin xaaladii ugu dambeeyay ama dhowrkii maalmood u dambeeyay ayaa rag saxafiyiin lagu xirayay magaalada kuwaas oo soo tibinaya sheekooyinka la xiriira dhul boobka iyo waliba soo kale dadka cabashada iyo dadka aragtiyadooda iyo waliba sidoo kale dadka sida weyn ay uga xun yihiin waxa ay burburinta ay dawladda Soomaaliya ka wado dhulalka gaarka loo leeyahay iyo kuwa danta guudba haddii aan fiirino sidoo kale magaalada muqdisho ayaa laga dareemayaa xaalad foojiganaan ah kadib markii dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ciidamo dheeraad ah dhigtay qaar ka mid ah wadooyinka muhiimka ah ee caasimadda talaabadan ayaa timid xilli ay jiraan cabsi markaasi laga qabo mucaaradka dawladda abaabulan markaasi dibadbaxayaal ama dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed ay keeni karayaan amniga darada ah wararka siyaasadeed ayaana markaas sheegayaan in dawladda uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay si gaar ah u adkeysay ammaanka xarumaha dawladda iyo waliba sidoo kale dadweynaha muhiimka ah ee muqdisho iyadoona markaasi ciidamadan ammaanka lagu arkayo isgoosyada waaweyn ee goobaha markaasi muhiimka ah dadka shacbiga ayaana markaasi walaac ka muujinaya xiisadan siyaasadeed iyo waliba sidoo kale kuwa military la sameeyo saameynta ku yeeshata amniga guud iyo waliba sidoo kale dhaqdhaqaaqyada bulshada iyadoona wali markaasi la sugayo sida xaaladdu markaasi si isku bedeli doonto saacadaha soo socda iyo waliba sidoo kale maalmaha soo socda marka loo fiiriyo xaaladda magaalada muqdisho ayaa markaasi cakirnaan karta haddii ay sidan wax kusii socdaalaan daawadi haddii aad halkan nala soo gaartay runtii waxaa tahay qof qalbi wanaagsan waxaa sina xarsle kaaga codsanayaa inaad kanalkan soo subscribe garaysid muuqaalkan la garaysiin share garay saaxiibada la wadaag sidoo kale ka mid noqo saaxiibada cusub ee gaarsiin lahaa 5,000 oo subscribe ka ah 50 qof oo kaliya ayaa ka dhiman ka mid noqo saaxiibadaasi adigana waa ku mahadsantiin daawashada muuqaalkan meestardiin